kusimaha gudoomiyaha degmada Wallaweyn mudane Maxamed Cabdilaahi Koosto ayaa baaq ugu diray bulshada degmada Wallaweyn in hanaankii dib u heshiisiinta aanay wax iska bedeleen qofkii dhibaato geystan in macnaheedu aanay ahayn qabiil bal ay tahay shakhsiga dhibka geystay lana hor keenay sharciga qofkii ku xadgudba gudoomiyaha ayaa sheegay in nabadu ay tahay caadi wax dhib lana aanay jirin hadalkan ayaa imaanay xilli maalmihii u dambeeyay shacabku walwal ka muujinayeen xaaladda amniga degmada dhammaan dadweynaha ku nool degmada Wallaweyn iyo nawaaxigeeda waxaan u sheegaynaa in hanaankii dib u heshiisiinta wax isbedel uusan ka jirin oo cid ala cidii dhibaato geysatayna aysan qabiil ahayn ay tahay shakhsi sharcigana la horkeeni doono marka wax isbedel ma jiro cid alla cidii isku daysa in ay qalqal geliso amniga insha Allah ma ka hari doono meel walba uu joogo waa la raadin doonaa gacantana waa lagu soo dhigi doonaa laakiin waxaan u sheegaa dadweynaha ku nool degmada Wallaweyn iyo nawaaxigeeda inay nabadu ay caadi tahay wax dhib la aysan jirin xaaladdu hadda wax isbedel uusan ku imaanin degmada Wallaweyn ereyadeeda marka dadweynaha waxaan u sheegaa inay nala ilaaliyaan nabadda cid kasta ee isku daysa inay qalqal geliso nabadana meel walba ay joogto waa soo qabanaynaa waxaan horkeeni doonaa sharciga bi'idhnillah marka koowaad mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin sheegaynaa oo wax isbedel ma jiro wax dhibaato ma jirto xaaladda degmada Wallaweyn waa caadi oo ganacsigeeda waa u socdaa isu socodka gaadiidkeeda waa caadi dil waa dhaca oo cidii dil geysatana waa shakhsi dil geystay ee markaas u baahan in sharciga la horkeeno ma ahan in qabiilka kaliya uu qabiilka gab ahaan wax isla dilay qabiilka wax isla ma dilo oo shakhsi shaydaan horka ayaa wax haleeya shakhsi kasta wax haleeyana insha Allah sharciga waa horkeenaynaa dadkana waxaan u sheegaynaa in xaaladda degmada iyo agagaarkeedu ay caadi tahay xaaladda nabadgelyada caadi ay tahay wax dhib leh in aysan jirin hadda oo waxa shaqeynaya dhammaan hay'adihii amniga oo hay'adihii maamulka hay'adihii dawliga ayaa si dhammaystiran u shaqeynaya marka waxaan shacabka u sheegaynaa inay ku kalsoonaadaan dawladoodii mar walba waxaan ku celcelinayaa shacabka waxaa mas'uul ka ah dawladda marka in ay ilaahiga ayaga abuurtay ay ku kalsoonaadaan dawladooda ay ku kalsoonaadaan marka waxaan leeyahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ku kalsoonaada dawladdiina waan idin salaamayaa Cabdi Qani Maxamed Xasan warbaahinta Koonfur Galbeed Wallaweyn.